yahay culimada dawladda oo wasiirka biyuhu ka kow yahay gudoomiyaha xusbiga xusbiyada ka socda Faysal Cali Waraabe madax dhaqameedka haweenka dhamaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa goob dhaqan iyo dawlad mid kasta ha ahaado qofka ama reerka wax ku noqda oo dadka bulshada wax ku noqota ama isaga bulshada wax ku noqda ilaahay waxaan uga baryaynaa Naasir Xasan inay kay bulshada wax ku noqoto uu noqdo kay bulshada wax ku noqoto waxa weeye kay abaarta kaga baxdo ay kaga badbaado ka taliya ka colaada ay kaga baxdo ka diinta kaga taliya ka wanaaga ka taliya weeye midna wax uu ku noqdaa isagu ma magaca ku hela dawladana waa saasi leeg madax dhaqameedka maanta maalin looga ixtiraam dareeyahay ma jirto ayadoo ixtiraam leh oo wanaag ka shaqeeya oo nabad ka shaqeeya haddana dhaliilaa jira Soomaaliland markii la soo galay toban suldaan baa joogay oo qura tobanka suldaan lixda gobolba nabadgelyadoodu way gaadhay maanta ay boqol ku dhow yihiin ayaga mushkiladoodii la daweyn kari leeyahay mushkiladaha ay dhigno inaga aba la daweyn leeyahay marka waxaan leenahay inaguna aan iscaanano kaalinta aynu leenahay aan ka qaadano markaasay dawladda iyo bulshada iyo cid walba hagaagaysaa waxaan culimada had iyo jeer ka maqlaa afar hadaanay jirin ilaahay dunida uu laabay ka maqlaa culimada wadaadda culimo oo xaq ay baadilka kala sheegaya hadaanay jirin ilaahay dunida waa laabila dadka dawlad ama dhaqan mawlamara oo umada kala saaray hadaanu jirinna de qof baa wala qof nool baa qaranaya oran laha hadaanay jirin ilaahay dunida waa laabila tishaari hadaanay jirin oo umada caawiso wax jirtaan ilaahay dunida waa laabila فقرة بعد عقدنا الله يلاهدا هذا يصير مرك العاوية إلهي بريود بعيانا إلهي يدري والله بالله الله يلاهدا ما ده حدا قميص كوي حكوشة كوميدا حكوشة مرك كوشة قوي وأنا ده بوشة يونا ودبعتين يا وحلا يا عباس السلمدو وأنا كقول يوان كسر شيلو وبعد ده الله يلاهدا شوفي ده خاصة بريحة فيها كسر شيلنا وحلا الله يحل كريستنا على هاي أبو أسرة خير كصوت وخير هاي أبو أسرة والله هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.